Assalaamu calaykum. Inta badan dhaqamada iyo diimaha ka jira qaaradda Afrika, khaasatan dadyowga haysta diinta Islaamka, ma ogola in dumarka mar qura ay guursan karaan rag badan. Balse waxaa jira dalal uu guurka noocan ahi ka yahay dhaqan soo jireen ah. Waxaan maanta muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa 4 dal ee dumarkoodu hal mar guursan karaan rag badan. Dalka Shiinaha, gobolka Tibet, waxaa dhaqan ah in dumarka mar qura ay guursan karaan rag badan. Waana arrin laga sameeyay deegaanada gobolkan. Qowmiyadaha ku nool halkan waxaa dhaqan u ah in dumarku hal mar ay rag badan la aqalgali karaan. Adigu waxaan waxaad hadda isweydiinaysaa sidee macquul ku noqon kartaa haweeneyda markay dhasho ilmo qasab kuma aha in aabaha dhalay ugu magac darto, maadaama ay rag badan u dhacdo si ay u ilaaliso xiriirka kala dhexeeya raggaas. Daraasaad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in guurka noocan ahi uu 90% ku badan yahay deegaanada miyiga, balse kuma badna magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Shiinaha. Nepal waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan ee ku yaala qaaradda Asia. Wuxuu dhacaa buuraha Himalayas. Waxaa sanadkii 1963 dalkan laga mamnuucay inay dumarka mar qura guursan karaan rag badan. Balse weli guurka noocan ahi waxay dhaqan u tahay bulshooyin ku nool deegaanada Hamla, Dolba iyo Kosi. Waxay sheegeen in dhaqankooda uu farayo arrinka kan, isla markaana sharciga uusan ka hor istaagi karin guurka noocan ahi. Sidoo kale waxaa guurkan sameeya qowmiyadaha ku nool deegaanada dhaca waqooyiga iyo waqooyi bari ee ku nool dalkaasi Nepal. Dalka India, dalka labaad ee ugu bulshada badan caalamka. India guurka noocan ahi ma ahan dhaqan ku cusub. Qowmiyado badan oo ku nool dalkaas ayay dhaqan u tahay in dumarku ay hal mar guursan karaan rag badan. Gabadha ku talaabsata guurka noocan ahi waxay go'aan ka gaartaa arrimaha qoyska dhamay, haba noqoto dhanka guri samaynta, howlaha guriga dhammaan, iyo xataa mas'uuliyadda guriga. Ragga badan ee guursadayna waxay ku khasban yihiin inay dhageystaan oo ay go'aanka ay qaadatay qadariyaan. Dalka Nigeria, ilaa iyo maantadan waxaa jira deegaano ku yaala Nigeria oo uu ka dhaqan galay guurka noocan ahi. Dhaqanka noocan ah ma ahan mid ku badan bulshada dalkaasi, balse waa mid si qarsoodi ah loo fuliyo. Qowmiyadda Irigwe ee ku nool koonfurta Nigeria, haweenka waxay guursan karaan rag badan maadaama uu yahay dhaqan soo jireen ah. Sanadii 1968 waxaa la ansixiyay sharci mamnuucayo guurka noocan ahi, balse weli waa dhaqan soo jireen ah oo si qarsoodi ah ay bulshada ugu talaabsadaan. Gabagabada muuqaalkeeni maanta ayaynu soo gaarnay. Daawade, aragtidaada inoogu wadaag qaybta hoose ee commentiga. Guurarka noocan ahi iyo waxay kugula yaabka badnaa aad ka aragtay muuqaalkan intaad daawanaysay. Waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.